Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran kanaalka Samooda ee YouTube soo dhawaada. Kuwani waa murtiyihii Najiib Maxfuud waxayna ku bilaabanayaan sida caadada soo jireenka ahi waxay awoodaa inay xanuunka darbed la'aan ka dhigto. Xabashadu waa luqadda ay aadamaha oo dhammi wadaagaan. Xeerarka adduunka lagu dhaqaa waa inay hantiilayaashu dhacaan saboolada, balse saboolada aanay xadin hantiilayaasha. Haddii bulshadu ay seexato, xumaha iyo samahu way seexdaan. Haddii aynan jahliga ka tirin dalkeenna, dalxiisayaashu waxay u imaan doonaan si ay inaga inoo daawadaan u daawanin raadadka dalkeena. Ha ka cabsan inaad weydo dadka kale adigoo isleh ee ka baqo inaad weydo naftaada adigoo isleh dadka kale. Waxa ugu xanuun badan markii aad si indho la'aan ah qof ugu kalsoonaato, isla qofkaana kuu xaqiijiyo inaad indho la'dahay. Iska jir inaad ku dheesho oo dhayalsato dadku waayuhu ciileen, ma ogid waxa ay bir kuu qarinayso. Qalbigaaga ka biyo diida, ku kalsoonaa qalbigu wuu ka aragti dheer yahay isha. Xabashadu waa luqadda ay aadamaha oo dhammi wadaagaan. Isla marka aad gabto ayaa dadka badi waxay ilaabaan wixii wanaag ahaa aad hore ugu soo samaysay. Qaar inaad qof siiso fursad labaad sidii inaad u dhiibtay xabad rasaas ah maadaama uusan kula helin tii hore. Ma ahan in ay qalbiyadeenu madow yihiin, haddii aanan doonayn inaan aragno wejiyadii ina xumeeyay. Jugta koowaad haddii aadan wax ku baran waxaad istaahishaa jug labaad inaadan noloshaada cidna ku xidhin. Waayuhu maalin ayaa wax kasta aad la qabsato ku seejinayaan. Haddii uu qof kaaga sheekeeyay dhibaatooyin uu dad kala soo kulmay, waa fariin uu kugu sheegayo inaadan sidooda ku noqon. Diiqadii caajisku waa kansarka ruuxda. Ka tuurta urta tagtadii wuu kacaa kufaa. Dadku waa qofka aan arrinna qaadan ilaa uu tijaabiyo. Iska xir daaqadda ku dhibaysa si kasta ay u qurxan yihiin waxa aad ka daawanayso. Muuqaalka guud waxa ku qiimeen maxaa yeelay waxaa jiri kara qalbi qani ah oo xiran koodh faqiid ah. Kaftanka waxaa ku lamaan in badan oo xaqiiqooyin ah. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ku anfacay, like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.